السلام عليكم سو دواada dhammaantiin fiid wanaagsan inaad ku sugantihiin baan rajeynayaa soo dhawaada waa idinka qaaday dhammaantiin soo dhawaada walaalayaal waa bilaabaynaa mar dhow aad baa idiin soo dhaweynayaa dhammaantiin walaalahan sugaynaa inta hal mar isku imaanaya barnaamij aad u xiiso badan baa caaw ka hadli doonaa intiina nasiibka u yeelatay daqiiqado yar buu socon doonaa barnaamijku imtixaan uu noqon doonaa barnaamijka kan insha allah marka wax weyn baa caawa idinla wadaagi doonaa insha allah haddii la yidhaahdo waxaa nooca suman caawa oo barnaamijka aan wada daadihinayna si talantaaliya aniga iyo walaal kale oo baran doontaan insha allah uu noo imaanayaa dulqaata insha allah wax yar dulqaata soo dhawaada dhammaantiin soo dhawaada aad baan idiin soo dhaweynayaa si toosa u gudagelaynaa barnaamijka mar dhow insha allah si toosa u gudagelaynaa عويس وناكسن السلام عليكم أحمد. السلام عليكم أمار سودو أكو فرحسن هينا عاوة وحوي نقوه هنسيد نقوب تطن سودو دمان ولا لها وسودو وينيا عاوة بكلن ككن وحس خاصة نوجع عسمن أرداغ كان ووذا داتهير ناسي تلانتاليا أنا جاي ولا الأمار محمد هدان وحير إدين شرح أمار قفكو يهي أمار وحجوغا ودن كشرملكا waa nin ku hadla ilaa 5 luuqadood waa ganacsade ka shaqeysta ganacsiyadan online-ka iyo dunidan digitalka ah qaybta waliba cryptocurrency NFT-ga iyo web3-ga iyo arrimahaas aad waxa weeye isagoo khabiir ugu yahay soo dhawow Amar dhanka kale marka la fiiriyo xaqiiqatan waa nin aad u maskax furan kulamo waaweyn oo waxa weeye dadka yani personal development-ga horumarka ka hadlana حاضري أو ستوس أو حاضري وقف أبجريد كسمة mindsetkiisa hab fikirkiisa maskaxdiisa furanta hay dunidan casriga iyo meesha u socota la socda marka waxa yeelan doona barnaamij talantaale yani isagu oo dhinacyo kala duwan ah wax badan ka faa'iido doontaan intiina nasiibka u yeelato inay soo xaadirto intan waxa weeye daqiiqadahan yar u socon doona barnaamijku aad u kooban yahay waan idin hambalyeynaa إن شاء الله سودو ولا الأمر إسبر أدوكنا وحوي ولا لها وكفر أحسن عينات أرداغن وحوي نلجوتين عاون السلام عليكم عويس وناكسن أدوك السلام أحمد وكما أصنت عسيمة دادا كل يسين وكل شيء سنة حرت ولا وقت كين وكوبية هاي ملا لا تندق سوق الدونا نلقي بسندونا إن شاء الله وحكو عصبية بالشدة إن فايدينه أدوك مع السنين ومركي جيل لبعض إن أبد سوق له لايف marka haddii uu igu cusub yahay sawla socda waxay noqon doontaa insha Allah laakiin midii ugu dambeysay ma noqonayo maadaama social media kuma badni inta badan aan aad u mashquulsanahay shaqeeyo waqtigeedu yar yahay laakiin hadda waxaan go'aansaday sanadkan cusub inaan Soomaalida insha Allah bulshadeena wax badan ka caawino garab istaagno aan yaxmedna insha Allah barnaamijyo badan wada shaqeynayno aad baan ugu faraxsanahay barashadaada iyo isweydaarsigeena taasna waxa weeyaan tan aan caawin insha Allah la wadaagi doono aad ugu mahadsantahay Axmed soo dhaweyntaada wax rabaa inaan si toos ah ku weydiiyo su'aalo kooban oo nuxurku waxa weeye barnaamijka soo koobaya si walaalahuna wax badan uga faa'iideystaan waxana macquul ah inay su'aalahaas ka dhex guuxayaan walaalaha madaxooda waxaan rabaa inaan ku weydiiyo maxaa ku caawiyay oo fikirkaaga dhisay maanta qofka aad tahay ka dhigay marka dib loo fiiriyo noloshaada hore meesha joogtay hadda waa maxay waxa ku caawiyay oo walaalaha kale aad kula talin karto dhigi kartaa hadda idinkuna sidaa samaysaan isbedel baad dareemaysaa
horta axmed oo isis faniya haddii aan caadi eegno dhalinyartii markaan ahaa adduunka horta iskoolkan u necba waxaan ahaa haddii ku jiraan kuwa iskoolka necba masaaqadiina waxaan ahaa qof markuu iskoolka toogo rabshada iyo qayle iyo hadal badanaa macallimiinta u leen jiray mar walba igu qaadato waqtiyo badan inaan barto nici jiray akhriska inaan akhriyo qur-aanka inaan dhigto jiska koowaad kala haatay 4 sano igu qaadato inaan jiska koowaad baran karayo halkay dadka qur-aanka dhameynaya macnaha wax adayg ahaan oo kale ama caamada qaabkii loo barayay kabacdi markaan imika weynaanay waxaan bilaabay inaan akhriska akhriyo laakiin waxaan xiisaynay tiina ay noqotay completely bedesho noloshayda aan akhriska iyo dadkan ku xidhanahay iyo dadka mindsetkayga waxaan jecelayn helay kabacdi markuu qofku wax uu jecel yahay helay isagaa baran karaya xisaad u qabaysaa inaad wixii akhrisato xisaad u qabaysaa wixii inaad waqti badan geliso dan waxaad noqonaysaa complete qof kii hore ka duwan imka tusaale ahaan oo kale inaku shakhsiyan ba haddaan isku eegno maanta axmed yaa tahay ma xasuusanaysaa maalintii lagu sheegay inaad qof soomaaliya tahay ma garanaysaa maalintii diinta islaamka lagu sheegay maalmahaasoo dhan ma garan karis laakiin waxaas aragtay adigoo inaad qof soomaaliya diinta islaamka haysa shahaadanaya soomaalinimada ku dhaaranaya qofkana tahay aaminsan waxaana kaa dhigay waa dadkaad ku xidhnay dadkii waxay sameeyeen qofkaa tahay marka su-aasha waxay noqon karaysaa adigu ayaa tahay horta ayaad isweydiin karaysaa qofka kumaa tahay maanta axmed kumaa tahay haddaan ku weydiiyo axmed waa magacaaga soomaali oo hooyada iyo aabaha baa ku bixi laakiin adu ma tiid adu maada dooran adigu ma dooran haddaan marka adigu ku weydiiyo axmed oo kumaa tahay oo tiraado axmed waa magacaaga adigu kumaa tahay ma soomaali baa tahay ma aab baa tahay imse qof baa tahay su-aalahaasna waxaad soo saari karaysa adiga gariid samayn karaya markaad barato waxaad jeceshahay xiisayso dan qof kii hore ka duwan baad noqon karaysaa indhahagu way ku furmayaan meelo badanaad ka eegtay noqonaysaa so waxa waa ii sababay dadkaan ku xidhanahay in aad 3 sano ka hor aan galay online business onlinekaasoon dad ka bartay bulsho saan u fikirayna ka duwan qaabkan loo soo tarbiyay ka duwan qaabkan waxbarashada galaaska koowaad la galaaska shaqada sektornada aan dhiganayna bara dhame iskoolka dhame jaamacadda dhame qof u shaqee maandisabkeen wuxuu noqday sideen jaamacadda u baran karaya halkee wax laga baran karaya qofka xataa markuu focal jaamacadda galay wuxuu u garanaya lacag inteed ba hadhow qaadanaya way yartahay dadka u dooranaya inay waxaan fani tahay in waxaan ay tahay wax uu jecel yahay ama laydan shaftigiisa jan waxay noqonaysaa wax uu xiiseynaya ay tahay keliya waxaan dooranayna waxay noqonaysaa waa jacayl iyo lacag inteen ka samayn karaya laakiin markaad hesho waxaad jeceshahay aad rabto waxay noqonaysaa ma istaagi karaysid waad furnaan doontaa waxaad noqon doontaa qof very open minded hadba xiiseynaya cilmiga adiguna inaad diyaar u tahay inaad qofkaa noqoto waqti bayna kaa qaadanaysaa maadaama dadka inagu xidhan agagaarkeena ama kuga agtaada ku xidhan ay saa u fikireen oo qaab ka duwan ay u fikirayaan qaab kooban oo ah meel soka ka eegaya ay negative badan ku keeni doonaan marka waxa ii sababeeyeen hadana soo koobaya waa businesskii aan galay onlinekii ahaa iyo dadkii file matigooda iyo dadkii informative aan ku xidhnaa inay indho kale iga siiyeen adduunyada iyo akhriskoon waxoogaa adu aan akhriyo hadda taas ay sababay oo ku mahadsantahay inaad nala wadaagtay maanta qofka aad sida u fikiraysid iyo sida hore u fikiraysa wixii bedelay wixii ku caawiyay su'aal kale raba inaan ku weydiiyo adi qof Soomaaliya tahay bulshadeena Soomaaliyeed markaad fiirisid iyo adduunyada tan sida u socoto iyo waxa weeye dunida tan maanta casriga iyo dunida digital age-ka aan joogno maxaad waxa weeye ku qiyaasi lahayd ama maxaa isdhihi lahayd waxaasay ka gaabiyeen waxaasna way ku wanaagsan yihiin adoo fiirinaya iyo soo jeedinta taladaas siin lahayd horta axmed waxaan aaminsanahay Soomaalida inaan nahay dadka firi isma anti barnooska waxa la rabaa garanaysa dadka ganacsadayaasha in DNA-ga Soomaaliga qof kasta ku jira inaan nahay dadka ugu high quality ugu sareeya hadday business noqoto inaan top noqon kareen in waxaan aaminsanahay qofka Soomaaliga Ilaahay siiyo creativity ka duwan dadka kale maskaxdeena ka furan tahay inaan dad furan nahay inaan hal abuur ganacsi inaan ku jiro dhiigeen in aan top kuna meeshan doon Europe aan joogno waxa weeyaan inaan top kuna halkaas focalkaas laakiin aanan helin dadkii ishay noo saaray sidoo kale wax hadaan gallo kulli sheekh Mustafa Ismaaciil oo kala toos u sharaxaya sidaan Soomaalidu ugu fiicanay meeshan galab haday diin noqoto dadka ugu sareeyaan Europe markaan soo galno haday noqoto xumaan waxaan tagnaa meesha ugu sareysa meeshan qabsano waxaan noqonaa dad laga dhex dareemi kara inaan ku jiro waxyaaladan kooban ee dadku eegayaan dagaalada wadanka socda waa baahida weyn in qabiil isku qabsaday iyo dhibtan waxa keenta waxaan dadku maadaama ay noloshoodu financial stability ahayn taas baa keenta laakiin caadiyan Soomaalidu waxaan nahay dad entrepreneurs-ka ah dad ganacsiga hal abuurka Ilaahay siiyay haddana caalamku meesha uu jeedo waa meel cusub cid garan karayso maanta shay karaysa ma jirto 5 sano 10 sano soo socda halku tagi doon wad la socotaa web3 metaverse NFT crypto kan online ka baa arkaysa 10 sano ka bacdi sidoo ahaa iyo maanta sidoo yahay isku mid ma wuxuu isku bedelayaa si aanu qofna garan karin halku mustaqbalku tagi doon walina waa bilow hadda
welina hadda bilowgu yahay su-aashu markaa taala hadaa reer galbeedka hadaad u fiirso maanta cid naga horeysa ma jiro kaga horeysa ma jiro garan karayso si shay karaysa ma jiro macnaha wax iyagu ku nool yihiin sama xalat wala ka sheekaysan waan sharaxi doonaa kole 4 generation wax kala jira 4 generation dib aan sar marka laakiin Soomaalida aad fiirisid hadda bulshadeena waa sheegtay inay ku wanaagsan yihiin yani hal abuur ganacsi leeyihiin fikiro curin karaan maskaxdoodu furan tahay laakiin ma tahay maskax furnaanta iyo hab fikirka ganacsi ah ayaa ma la jaan qaadi karaa dunidan casriga ah maanta ee digital age-ka waxaan aaminsanahay waan la jaan qaadi karaynaa weli waxaan noqon karaynaa dadka leaderka ee adduunyada xagidoon haddaynu focuskeena isku diyaarino u noqono dad open minded dad leadership sameynaya dad inay wax bartaan noqon karaya kulli waad garanaysaa waxa jira wax la yiraahdo mentorship qofku in uu qof uu ku xiran yahay qofkan meeshan ka baxay tusaale ahaan oo kale balka horan haddii adduun saaran tahay oo doonta wado aanad garanay meel aad u socoto waqti kamid ergan ban waxa dhici karta in doontu shidaalka dhamayso ka bacdo shidaalkaagu baabo oo macnaha doonta hore u sii socon weey maadaama aan direction lahayn sida awgeed waxa laga maarmaan in aan yeelano dad jidka sii maray meel fog ka arki kare ku hagi kare mentorship oo kala kulli waan kooda sheekaysan waxa ka qayb qaata eventyada waaweyn oo kale inaan ka qayb qaadan kareyno kala seminaarada inaan sameyn kareyno in aan akhrisan kareyno buugaha taariikhda adduunka si isku bedelaan waxaan hadda aan socono waa digital nooc cusub weeyaan laakiin horey u soo dhacday iyadoo nooc kala مثلا in digital la sameeyo qaabka la isku maamulayo siyaasad ha noqoto ganacsi ha noqoto waxaan buugaag bay ku qorin waxa la yiraahdaa hadda sirnaad qalisan rabto buu ku qoro sababtoo dadka eegi doona way yiri dad fudud ba eegi doona dadka badan ama eegi karayaan oo sabirka mala marka in waxa u baahan yihiin dadku ay helaan meelo mentorship qof tababari karay jidka u sii sameyn karay sayimka matalan aka maxaa darwish academy aad u sameynayso kale bulshada inaad dhiirigelinayso tusayso way ay ku sameyn karayaan maal inkastoo weeyadu badan yihiin oo boqolaal kun oo way jiro fursadaha adduunka ma soo marin taariikhda bini'aadanka waqti aan ka fursad fiican ay waqti xaadirka this is easy way aan qofku inuu financial stability noqdo in uu noloshiisa meel ka soo saaro laakiin waxa adag qofku inuu cabsina information gap baa jira in uu boxigan ka bixi karayo inuu aamini karayo كل أدم كودين كريا بنا قلت جوابته كل وذكرنا سبراديغما سوى شقيسو لو ذاك براديغما إن مسكحتي إن imagination كقاب كاي سميسو كل واحد كل صعدة واحد لسه عندي إنك يدنتي اللي مي بوبر توكتر أو عاد وجهد لبراديغما على إيو مسكحتي إنه سوى شقيسو إيه سبوكسي اللي هو بحي كريا وكلية هي واحد كسو كوبي على هل وحكلية أو كبرت معلك بوب بروكتر نروح دينتي صدق دي بيشو كاريودي سامين بدن بوحو ku yeeshay leaderska maanta waqti xaadirka joogay dadka hogaamin doona fariintiisa sii wadi doona oo maanta ka hadla adduunyada tan de yani maysadka iyo ganacsiyadan ku jira wuxuu ku leeyahay qofku laba mar buu wuxuu galaa programming wax la dhaho waa marka uurka hooyadiis ku jira waxa weeye waa genetically programming wax la dhaho 23 aabaha ka yimaada hooyada ka yimaada isku degay baad ka yani ka urumantay waa sida maanta aad ugu egtahay qaraabadaada ehelkaaga hooyada marka wuxuu ku leeyahay adduunyadii baa timaaday markaa adduunyadii markaa timaaday wax kugu dhacay buu ku leeyahay wax la dhaho environmental programming sida hadda ay ka sheekeynaysa yani environmental programming kaas uu ku programminaya wuxuu ka dhigayaa yani qaabka u fikiraysid sida u dhaqmaysid sida u hadlaysid mindsetkaaga meesha ku xadeynaysid laakiin haddii ka soo bay'ada ama environmentiga aad ka tagtid oo bay'a kala tagtid maxaa noqonaysaa oo dad kale oo ka duwan gashid dadkaas ku saameynaya marka waxa la dhahaa bini aadamku waa sida waxa weeye hadda meesha bay'ada uu joogo baa saameyn ku yeelanaysa laakiin adaa dooran kara bay'ada saameynta ku yeelanaysa ma waxaad dooranaysaa bay'o taa doonaysay ah oo rabitaankaaga oo dadkii saxda ah energy saxda ah ka helaysid hab fikirkaaga korinaya fikrado ganacsi ku siinaya kadibna waxa weysaasa ku bedeli karta waxa la dhahday qof walba oo maanta nolosha horumar ka gaaray xogta uu haya muusan hayn laakiin wuu helay yuu ka helay dad buu ka helay maskaxdiisi baa la shiday kadib wuu tuujiyay maskaxdiisi fikrad ganacsi uu helay fikradii buu sii curiyay sii ballaariyay waqti iyo tamar sii geliyay Elon Musk maanta markaad fiirisid 20 sano ka hor ma jiray 3 sano ka hor ma jirin information buu helay aysan dadka waqtigan jooga aysan hayn xogtii buu ku dhagay kadibna wadadiisi buu jeexday marka waxaad ogaataa maskaxdaadu waa sida beerta oo kale maanta beertayda haddaa ku beerto liin dhanaan ma waxa ii soo baxaya cambe may waxa ii soo baxaya liin dhanaan waxaan beerto maskaxdaaduna waxa aad ku beeratid iyo fikrada aad ku beeratid iyo juhdiga iyo waxyaabaha ku beeratid baa goosanaysaa mirahooda marka adiga fiir isweydii maxaa ku beeranaysaa maskaxdaada waa maxay waxa ku beeranaysaa marka hab fikirka lagu sheegay waa taas waxaan rabaa marka inaan su'aal kale ku weydiiyo Amar
su-aashan waxay ku saabsan tahay soomaalida iyo social media maanta dunidan aan joogno qof walba oo social media soo gelaya sabab buu usoo gelaya ama yani dadka ugu badan waxay usoo galaan businesskooda inay ku dhisaan fikradahooda dad inay ku gudbiyaan hadday wax qoraan nooci doono ha noqoto qole waxay usoo gashaa entertainment marka maanta markaad fiirisid oo bulshadeena sidaa u fiirisid intaa ka dhex baxdid oo saa diiradda ugu qabatid iyo social mediaha maxay kula tahay yani qaabka u isticmaalayaan ma tahay qaab u dhoweynaysa dunida casriga inay la jaan qaadaan waxa weeyaan waxa aaminsanahay horta Soomaalidu san hore u sheegay kale waxaan nahay dad very open dad waxyaalada ganacsiga oo kale heer sare ka gaari karaya laakiin hal dhib jirta markay Soomaaliya burburtay kaliya dawladii ma burburin dadkiina mentality bay burbureen waxa baabaaday dad academical oo inakii ina dhisi karayo qaabka u sameyn wax yar baa walaal waxa way khadka uu ku soo laabanaya aan dul qaadano insha Allah barnaamij xiiso badan weeye insha Allah aan wax yar u dul qaadano aan wax yar u dul qaadano okay ku soo laabanaya Omar khadkaaga ka ay barnaamijkan waa barnaamijkii gunaanadkiisaan kaga hadli doonaa ciwaanka waxa weeye barnaamijka ku aragteen waa barnaamij aad u xiiso badan dhinacyo fara badan oo bulshadeena u baahanto wax badan ka faa'iidayaan hadafkaygu waxa weeye 2 qof 3 qof ilaahumay noqoto in habfikirkooda isbedelo markaasaan lifekaas soo galayno habfikirkooda ganacsi si u fikiraya isbedelo saameyn aan ku yeelano togan usoo laabto walaal marka barnaamij xiiso badan weeye insha Allah waa wadi doonaa soo dhawow Amar walaal oh soo dhawow brother aad u xiiseynaya walaaluhu barnaamijka xaqiiqatan waxaan rabnaa marka inuusan ka kalo kayn soo dhawow hee ku soco waxaad tiraahday yani dal ahaan dowladda markay burburtay waxaa burburay mu'asasaadkii dadka dhisi lahaa iyo idaarooyinka yani inay dadkii waxa weeye ilo meelo ay wax ka helaan ay dad horumarayaan ku soco khadka ciladan malaynaya ma maqlayso ma hadda waa caadi waa fasax waa ku maqalnaa way maqlayso ma wixii hortaagan baalka okay hadda inuu ka yeelan san ku sheegay baalka technically maadaama uu ugu horeysa ma kaygii labaad yahay aan soo galay no problem khadkayga baxay waan iga raali gelinaya din male ku soo maxay ahayd yaa waxaan soconay in aan eegno maxaa Soomaalidu si ula teknolojiyada meel la qaadi karaysa mise ka faa'iideysan karaysa horta waxaa jira social media-gu أنا النوع دونه هالنقطة وحويا وح حلستيسو حداف بضنطة مكا علم نفسي كأكتو ضدك وحقلين كرايا مال ما مقلسان واكو مقلها صفة صح اوكي مادام صور كاجا يستاهل اساس او قد بس لا ما عادي قصة سوشيال ميديا وح فائدتيسونا اي بدن tahay sidoo kale riisikiisuna ay badan tahay dadka qaar kood si fudud bay khadka uga bixi kareen markaad eegto waxa jira wax la yiraahdo سلبس أنا كانوا الجرمال كوكلا قفكو وتذكر كلا واحد وكربا ومحاولة واحد نقولنا سا قفكو مثلا ضد كان سوشيال ميديا لايك تن كومنتي كان دمان تودو دم يعني واحد يقول يستاهل كرنا بوجي يعني ما أنت مركز في ريسيب ضد كان يعني سينما كان مركز واحد سبعينيين قابك وش سبعينيين عضد كان نوع والبا إن هذا كل في الريح كرتيسة وقفة إذا يستعمل عليه واحد دمان تودو واحد لو سمية وسيكولوجيكال بكو حرانتا قف كان codkaad maqlaysa whatsapp-ku dhig markuu leeyahay like la siinayo comment la siinayo dhammaantood saameyn waxay ku leedahay dareemadaada haddii aanad garanin emotional baad noqon kartaa waad dhaxgali karaysaa in dadka qaarkood ayna seexan kareen habeenka iyagoo haya kusoo kacayaan subaxdii isagoo haya haddaad eegto halistiisu aad bay u banta in haddii 10 commentiya aad hesho maxaa uu keeno kugu soo diraya notification sabab kugu soo diraya waxaan sameyn doonaa barnaamijkiina dambe maartay aan kala hadli rabay web 1ka web 2ga web 3ga aad uga hadli doonaa ayaan aad uga hadli doonaa waxyaalada ay ku xiranta psychologicalka maxaa keenay sababtan
sababo halistiis intee la egtahay risikadiisu faa'iidadiisuna intee la egtahay waa wax labada dhinacba ay badan tahay haddaba Soomaali ahaan inaku sino arki karin inaka waxa naga maqan hay'adii waxaan ku takhasusi lahayd baran lahayd dadka wixii halis u keeni kara ka mid nooc lahayd Yurub oo kale waxa weeyaan waxaanu ku cusub yahay laakiin waxay leeyihiin laamo ugu talagalay oo dhalinyartooda badbaadinaya meelaha ay kala iyo sharci mil nafsiyo haddii ilmihii uu suushtiis ku noqdo kale wax balwado kale ka noqoto social media dad la sheekaysanaya jira tababaraya ilmihii ka joojinaya laakiin Soomaalida ma haysan qofkii sida hadda Mareykanka kale doodii lagu curiyay Instagram-ka oo kale la joojin kara in ay xeerarka qaarkood ay leeyihiin waxa la yiraahdo xuduud ay leeyihiin ay daafi kareen dadka loo joojinayo dhalinyarada innaka laakiin ma haysano wali dawladii heerka gaari lahayd ee dadkeena caawin lahayd taasna waxa weeyaan waa wax halisaha inagu soo waajahan mustaqbal in dhalinyarteena ay ku baraarugayso qiimihiisa qofkiiba uu arki karayo heer uu gaaro commentiga iyo laagta uu arki karayo yar waxa ka dhacday in dhalinyar yar isku dilaan ay laga bixiyay Instagram ama social media maadaama vertiga qiimihiisa uu ku xiray social media inaku maadaama aan haysan hadaba dawladii waxaan oo kale sameyn lahayd analysis sameyn lahayd tafatir lahayd ogaan lahayd dibta uu keenay iyo halista uu yeelan karayo wixii lagu xalin lahaa qorshihii loo sameyn lahaa ma haysan marka insha Allah waxaan rajaynayaa in mar kamid ah dhalinyartu insha Allah ay dareemi doonto ku wajahan doonto bulshadeena lagu baraarujiyo meelaha xun meelaha fiican ay ka faa'iideystaan in aan mid kale u soo jeedno imanka meelaha caalamka u socdo sida NFT-ga metaverse-ga web3-ga ana ugu xidhin tusaalahaan oo kale haddii bal maanta ka waran qof asxaabad tihiin oo sanado hore kugu dambeeyay oo kuyo aad kulantaan wada sheekaysataan ka bacdi aad social media-ga kala bedelataan Instagram-kaaga uu ka qaatay Instagram-kiisa ka qaatay waxaad aragtay Instagram-kiisa hal qof kala haatay follower u yahay oo isaga macna follow u yahay oo kaliya wax kala aan haysan maskaxda maxaa ku soo dhacaysa caadiya markaad eegto psychological qofkan inuu dambeeyo qofkaasi inuu dambeeyo ama inuu beerti wax la yiraahdo lahayn qiimihiisu una hay agtashtintinis wax sadaba ma laakiin waa psychological ka baalka ka dambeeyo inuu dhahdo qofkan intee ku maqlay soo bad isticmaali karin inuu waa dambaysa camal wali digital laga yaabo qofkan meel kale ku mashquulsan inuu qof shaqeeyay inuu adduunyadan ba ka taagay oo aakhirada u shaqeysto inuu ganacsiyo kale normal ka leeyahay laakiin adiga maadaama social media-ga ku dhex jirtay waxay ku noqon karaysaa qofka wow hakay ku dambaysan taraa ka joogto haddaba haddaan inaku dadka maanta metaverse-ga ama NFT-ga 10 sano 20 sano haddaan maanta la sii jaan qaadi weyno waxay noqon doontaa hadhow toban mar ay caalamku tageen in aad noqoto waa waxay ka bilaabay internetku meeshuu marayay 90yadii buu maraya 90yadii oo kale oo sameeynayay oo kale taa waan ku sharaxi doonaa saan uga faa'iideysan doona bahalkeena laakiin waxa weeyaan hal arrin oo kale baa raba marka qaybtiina ku laabno buugga waa akhrisaana waan akhriyay oo waxa weeyaan qayb yani waa ka wada hadalnayna marmar waa buug xaqiiqatan aad cajiib u ah waxaan arrinta aad fiirisaan sii dabagelaynaa marka ka hadashay hadda tusaale kale waa yani markuu notification ka soo dhacayo Facebookga Instagramka WhatsAppka Fiverrka codadkoodu way kala duwan yihiin mid walba wuxuu sameeyaa qayb gooni waxaan laga sameeyay vibration-kan iyo yani barnaamijyada dhaq waa isla markiiba waa dareemaysaa markuu saa u dhacaba marka business brandiga iyo personal brandiga baan ka hadlaynaa hadda marka waxaan ku hormaraynaa personal brandiga sidee qofku social media u dhaawici karaa personal brandigiisa waxa laga yaabaa si kale haddaan kugu dhigo waxa laga yaabaa qof baa maanta muuqaal wuxuu duubayaa si waxyaabo uu caytamayo hadallo xunxun afkiisa ka baxayaan waxa laga yaabaa qofkaasi 5 sano kadib inuu hab fikirkiisa isbedelo laakiin maxaa laga hayaa muuqaal baa laga hayaa 5 sano ka hor caydaas uu qoray ama comment uu ka qoray screenshot laga qaaday ama muuqaalkiisa laayo qofkaasi seebu saameyn yani waxa weeye ugu yeelan karaa social media brandigiisa iyo emotional intelligence-ga uu imaan dara laakiin personal brandiga ay ku soo dhawo horta waxa aaminsanahay adduunyada waxaad bud ku waxaad geliso baa kugu soo baxaya caadi ahaanteed haddaad wanaag geliso waqtiga doon ha qaato wanaag baad helaysaa haddaad xumaan geliso waqtiga doon ha qaato ay kugu soo baxaysaa ama cayb geli ama xumaan geli laakiin taasis waa ta kugu soo laami doonta news brandigaad isticmaalaysa haddii uu yahay wax long version wax waqti dheer uu yahay dan waa inaad kow dadka jecesha bulshada waa inaad waxaan value waxaad u samaynaysaa aad u keeni karayso ka bacdi maalad ka samaynaysa lacag social media ka samayso waxa iyada iman doonta automatically waxan waa qaabku ilaahay adduunyada u sameeyay haddii aad wax beerti leh wax value leh aad dadka keento tayo leh aad dadka u anfacayso automatically meel aad ka sugayn baad ka heli karaysaa haddii aad wax xun keento negative iyo cay aad keentana daqiiqinta waxaad helaysaa taa tu lamid aad helaysaa
ma ubadkaaga ha noqdo ama noloshaada ha noqoto is the same time qofkuna waxa uu feel garaynayo haddii aad xumaan dareemayso xumaantaad buu samaynaysaa haddii aad aragto qof commentiga cay kusoo qoraya kama dhigno adiga kuma saameynayo qofkan isagaa dareemaya guilty wax la yidhahdo dareemaya sida awgeed waxan uu dareemayo bahalka samaynaya waxaan kuusoo qaadi doonaa sheeko nin iga sheekadiisu aad baan u xiiseeyaa maadaama dareen bay leedahay inaan kaaga sheekeeya ma garanay ciisa la yidhahdaa akhrisku siduu u bedilaan kaaga sheekeynaya bal noloshiisa may maqlaysaa aad ba ku maqlaa sida akhrisku noloshiisa u bedilaan kaaga sheekeynaya waxa weeyaan waa wiil waddanka Kazakhstan kasoo jeedaa Jarmalku degan yahay waxa dhacday hooyadii iyo aabihii qaxooti bay ku yimaadeen Jarmal kabacdi noloshiiba ku adkaatay odaygu khamri loo laakiin islaam weeyaan khamri buu bilaabay inuu cabo kayr buu tumi jiray hooyadii buu garaaci jiray marka ka yara 10 jir markuu gaadhay waxa dhacday inuu iskoolkii saaqid ka noqdo mar walba aabihii dilayo cabtooya ay ku dhacayso jeel buu galay isagoo 12 jir jeelka da'da yar inuu daraagiskii la kala iibinayay bilaabo daraagiskii la kala iibinayay wuxuu ku bilaabay marka buugiisu ka sheekeynay in uu sigaar cabay sigaar markuu cabay dhalinta tira waa sigaar baa cabaysa wuxuu helayaa service ana keeno dadkii baa oranay waxbaad noqotay ilaa keer gurigii kama helayo hooyadii aabihii ma oranay wax fiican baa cabtay waa dad balwad leh oo khamri cabay asxaabtooda waaw sigaar baa cabtay wuxuu bilaabay inuu xashiishad cabo waaw xashiishad baa cabtay si uu waaw dan helo wixii hore samaysay wax ka weyn inaa sameeyo sida uu social media baalku adeegsado weyn la dhaw ku soco hore ugu soco waa talent baa leedahay hore ugu soo soco dan khamri baa cabay hadana waaw waxa sameeyso marka in ay waawdaadu badato waa inaad wixii wax ka duwan sii samayso halku tagay waad garanaysaa wax tagaya waa meesha qaladkii ka yaraa muu helin waalidkii maxay ahayd amaantii siin lahaayeen waxa dhacday noloshii ku jira inuu jeel galay oo mar labaad galay mar saddexaad galay wuxuu leeyahay markii afraad baa ninka rashtaga maxay garsooraha Jarmalkiiba loo yeelay la xukumay markan 12 buu yahay 20 buu yahay kabacdi waxa la yidhi waa lagu cafinayaa iska bax uu baxay usbuuc gudaheed buu alaab xaday waa la soo qabtay kabacdi qofkii xadida ku sameeyay ninkan waxa jira Jarmalka wax la yiraahdo inta lagu xukumo baa lagu fasaxaya wax lagu oranayaa 2 sano kale hada dambi gasho dambiyadii hore gasho dhan baa lagu soo qaadaya hadda laakiin xorriyad baa tan nolosha sameynaysa marka qof inaad taabato ma nolosha caadiga iska socdo waxa dhacday marka kii ugu dambeeyay qofkii dacweynaya baa ka maqnaa gabadhii baa waxay tiri waxaan ku siinayaa fursad ah wiilan yarata haddii hadda xorriyad baa taad baxaysa hadda laakiin dambi soo gasho dhammaan dambiyadii hore gashay marka da'da yar ahayd baan kugu qaadaya kabacdi uu ka soo baxay jeelka uu ka soo baxay gurigii xafadu yimiday wuxuu arkay noloshu ku jiro waxa weeyaan waa nolol draagisa iyo khamri iyo balwada nolol adag buu ku jira xafadoodii aabii hooyadii mar walba la dagaalamayo oo aan qiimo badan sameeyay wuxuu sameeyay khamri intuu soo qaado gurigii yimiday inuu nafta iska jaro go'aansaday khamridii buu soo qaaday uu cabay wax alaali wuxuu daraag isticmaalayay inuu guriga isku daldalo marka uu dhamaysto balwada buu go'aansaday albaabku soo xidhay daqiiqad intuu isdaldalin ka hor baa waxaan sameeyay buu dhahay waa iscafi in isagu yiraahdo waan iscafi waxaan sameeyay niyadeedina waxa ku soo dhacday buu dhahay waa iscafinaya it's like fasting in carabdi wixii ku jirtay jirkiisa aabii uu qabo forgiveness inuu naftiisa siiyo inuu naftiisa sameeyo waan iscafinaya dan waxaan sameeyay buu dhahay hadduu ilaahay jiro يبدأ عنه وحده دقيقة وحي كدم بي ما قرني وحي دعي ذلك خمر ديو كجري بوكيرا سنة أوصح ويلكي وويل وين مركز دوري لاتنا أوصح ذي وحده وحن هدي مالين إلا ما أنت ذيك والدكو وضد خمر عبيعتكو قراعة الباك ورك هاي نسميجلو كبعد وحو سمية إن أي والي أو ما أنت إلا باتوقع أي أو قوان صنوش إن العادو بلابان ربا وحب بلابا إنو أخري in uu sameeyo positive bugaagta self development ka uu bilaabo noloshiisa uu sameeyo wuxuu leeyahay kanal la yiraahdo mindset mastermind la yiraahdo maskaxda master gare wuxuu akhriyay markaad positive sameynayso dadka saad u sameyn karayso in haddii aad qof wanaagsan tahay automatic dadka sameynayso book la yiraahdo habit of people not ganayso Atomic Habit buugiisa buugta sameeyo thinking gallery marka book waxa ahayd Anthony Robbins oo qoray waxa la yiraahdaa unshaky barba waxa la dhameeyay waxa أبشر ما قرناه أصلاً اللي يقصو قري دونا محل بالكيسة وحكى باور أوف برينسيبل لا بالك وشكانه كبعدي وحشاجع باوك إن حد يقف كعد بوزيتيف سميسو أوتوماتيك سمينه ويسوون قف جوسو رياكشن سمينه تجابي بيصير قري جبته أبيه وعبس باكوسو أرد سيدو أول بس مين جري ما هو يدي بهرت قري جوسو قلي
waxay ku bilowday inay tiraahdo qof xun baa tahay qiimo ma leedihi halkan baad soo galaysaa baalkiiba ka yar u isbedelay akhris buu bilaabay maskaxiisu si kale u fikiraya isla markiiba maskaxiisa waxa kusoo dhacday haddii aan iyadan wax wanaagsan siiyo bilo isbedishay intuu hooyadii dabsi habsi maadaama qofkan cayda uu leeyahay isaga dareemaya intaan hooyadii habsiiyey buu dhahay iyo ku yidhi hooye aniga waad igu qiimo badan tahay agtayda waxaad ii tahay qofka adduunka ugu qaalisan waana ku jeclaa islaantii wuxuu dhahay lilmay sii daysa wedii waxay ku hadashay intii weydii bay dhaqaaday sababto waxay dareemaysay iyadu inayna qiimo lahayn aabaheed maadaama cayda ku samaynayay markay lilmaysay wuxuu dareemay inuu shaqaynayo ay diigan aabihii baa soo galo khamri cabsan oo ku orday inuu gacan ku dhufta rabo gacantii intaan iska qabtay buu dhaaban habsiiyey odayga aabihii wuxuu istay qof baaralisiya ku dhaco kala buu saa u degaya in uu maas ku dhaco kala uu degan oo qof zero noqday xaafadii wuxuu bilaabay maadaama ku yaraa positive noqday inuu dhammaan noloshoodii bedelo hadda waxa weeyaan waa ninka Jarmalka ugu sareeya top master weeyaan waa billionaire buuggiisa hiid uu noqday uu qoray buuggiisa waa top Jarmalka wuxuu ku jiraa ragga ugu sareeya waxa la yiraahdaa Ciisa Christopher baa diinteena waa muslim ku sheegay laakiin qoxti badan ku yimid wuxuu ku jiraa buuggiisa buugta ugu horeeya buug uu leeyahay waxa la yiraahdo isjeclow intaanad jeclaan adigu noqo jacaylka intaad qof kale jeclaan ninka saameynna weyn ku yeelanaysa waxa weeyaan waxna soo boosto garaynayso ama negative ha noqdo adu saameyn ku yeelanay adigu noloshaada hadhow toona qaabkaad u fikirayso iyo qaabkaad noqonayso iyo farxadda dareemayso waxay saameyn ku yeelanaysaa in mastermind baa wax soo qoray Cabdullaahi soo qoray Cabdullaahi laftigiisa oo dhimaysadkiisa dhisay isaga insha Allah kulan kala la yeelan doona hay weeyaan markaas saameyn weyn bay kugu yeelanaysaa akhriska iyo dadkaad ku xidhantahay iyo waxa soo boosta garaynayso iyo noocaad u hadlayso ereyada adeegsanayso dhammaan waxaasoo dhan toodkaaga weeyaan waa qofka adiga kaa dhigaya qofkaad noqonayso marka waa inaad take care samayso ereygaad isticmaalayso waxaad saad u hadlayso commentigaad qorayso waxaad soo boosta garaynayso dadkan arkaya maa muhiimadu adiga weyn wax ugu badan ka helay haddaad jacayl rabto jacayl sii haddaad wanaag rabto wanaag bixi automatically indirect adiga farxadda gudaha dareemay farxaddu tanan arkayna maaha waxaa arki karaysa dad fuqaraaya oo faraxsan dad lacag leh oo faraxsan iyo dad murugaysan labada waad arki karaysaa laakiin adduunyada gudahaaga way muhiimadu dibadda maaha waa tan gudaha ka dareemayso maanta waxaad arkaysaa dad badan oo farxaddii ka raadinaya banaanka like la siinayo love la siinayo laakiin micnuhu waxa weeye fariinta aa wadid iyo macnaha dadka la wadaagaysid okay waxaan rabnaa mar dhow inaad soo gudaanada barnaamijka oo kugu soo wareejinayaa waxaan rabaa inaan ka hadalno ciwaanku mawduuca uu ku salaysan yahay aan wax yara qeexno aan kadibna waxa weeye wada gorfeyno soo dhow kulli waxaan rabaa okay anaa ka hormaraya qeexa soo dhow waxaad karas wareysan ما عاد ديما ويدي كرت سؤال درب وحوين كل واني بلو اوشن wax ka hadlayna red ocean fursadaha ay leeyihiin insha Allah waan soo gali doonaa caawa inaan tusno meelaha inaan insha Allah bulshadeena caawin doono ugu yaraan 20 daqiiqo 10 daqiiqo oo mind blue aan sameyn doono si ay saameyn laga yaabo in qofkan bedeli karayso waxna siinaysa ma dhiirigelintan aan fursad aan u bandhigi karayno inaan waqtigeena aan waqti kamid dadka la qaybtami doono diyaar baan haysaa hore kugu sheegay inaan community ay qayb ka qaato bulshadeena caawin karayno waxa caawimaad u baahan أنا نفسي راح يدونه بلو أوشن إياه ريد أوشن واحد كده جنتاي كل وحقا ويا دول مر وما حكى دي جنتاي فرصة أنت اللي أكتها أو شرح سيد هاي قفكوا إنه فهموا وأنا فكرة دني وفكرة ضدك ما أنت إن الدنيا عصري على الصعوبة وقناع صدق أي فيها سنت هاي قفل بقاد وخو آخري ولا سيمينار تجا بوك بابا لقى قري دور بوك كله برنامج كقراني هنا وجرا waxna laga hadlayo wax kale ma ahane dunidu meeshay joogto hadda inay si joogina laga soconayo inay laba fursadood kala duwan joogaan marka red oceanka waxa la dhahaa waa badda cas blue oceanka waa badda waxa weeye blue ka marka labadan badood waxa laga soo qaadayaa suuqan ganacsi ee yaani hadda jira inuu yaani laga guurayo oo loo guurayo suuq cusub uu jiro oo kale oo blue ocean la dhaho red oceanka marka wax la dhahaa kalluumaysato badan baa joogta aan si kala hataa kugu dhigo kalluumaysato badan baa joogta laakiin kalluun yar baa jooga kalluunka joogana kuma filna kalluumaysatada badan oo jooga waa bad la isticmaalayo muddo badan markay noqoto suuqa ganacsiga laakiin hadda laga guurayo oo loo socdo digital age marka waxa la dhahaa blue oceanku waa bad ay joogaan kalluumaysato yar
laakiin uu kalluun badani joogo fursad badan ay joogto waa meesha cillada ay dadka dhan u wada socdaan adduunyaduna hadda u socoto weeyaan waxaa la dhahaa marka labada qaybood marka la dhaho qaybta red oceanku waxaa la dhahaa buukan halkan xataa ku qoraya aad u qeexaya 20% baa waxa noqonaysaa 80% wax lagaa doonaya juhdi iyo tamar iyo waqti inaad gelisid aad u shaqaysid 20% waxa noqonaya faa'iidadaada iyo natiijada aad waxa way kaaga soo laabanaysaa halka blue oceankana 20% aad gelinaysid faa'iido badanna 80% kugu soo laabanayso maanta dunida waxa loo socdaa walaal see saacado yar u shaqeeyaa wax badanna ii soo galaan sidee aan waxa way saacadahayga u baaqaamiya xataa haddii aan 16 saacadood shaqaynayo oo gurigayga aan joogo see baan shaqada daal ugu dareemin sidee baanan karaahis ugu dareemin hadda Elon Musk oo kale 12 saacadood buu shaqeeyaa oo wuxuu jecel yahay waa shaqo uu jecel yahay laakiin dadku way bay shaqooyinka u necab yihiin maalinta jimcaha oo kale way faraxsan yihiin isniintana iyagoo xanaaqsan bay aadayaan shaqadooda waa maxay sababta wax aysan jeclayn ba ka shaqaynayaan sababta uga shaqaynaya maxay guri kredis baa laga doonaya gaari biilkiis baa laga doonaya يعني waxaas cadaadinaya bushkaraynaya marka qaybtan blue ocean iyo red ocean strategy waxyaabaha aan ku dabaqi doonto waxa way adduunyada casriga maskaxdaada dhan bay furaysaa markaad akhrisid istiraatiijiyaddan iyo say u shaqaynaysa iyo adduunyadatan maskaxdaada dhan baa waxay noqonaysaa yani sidii laastigisa u jiidmaysa kadibna fikirro badan baa kugu soo dhacay sababtoo ah tusaale hadda maanta kaas iyo Soomaaliya haddaad tagtid magaalada aad joogtid fiiri imise mehradooda cunno baa ku yaala meherada aad u badan oo cunnada lagu cunaa ku yaala sooma ka waran maanta haddaad tago meherad anna furto geeskooda ka furto ma waxbaa soo kordhiyey waxba ma soo kordhin suuqi waa dad suuq tartan ka jira weeye suuqaas red oceanku imise dukaan baa ka jira Soomaaliya oo kale dhanka kale marka la fiiriyo marka blue oceanku waxa ka jira fursado badan baa ka jira tartan badan kama jiro wax walbo aad samaysid hid bay noqonayaan marka waxa weeye barnaamijkan taxanu noqon doona caaw intaas ku soo gabagabeynayna waxaan ku soo yani dhaweynayaa soo noo soo gudaanadi doona walaal Amar si aan waxa weeye aniguna aan marka dambe aan u soo gudaanado insha Allah Amar soo dhow walaal waa maasantahay Amar Mohammed thank you waa maasantahay insha Allah markii magacaaga u dhawaaqaya waad ku maasan tahay ustaad insha Allah inaan igu soo martido saad hore u sheegtay insha Allah waxaan sameyn doonaa 20 minutes 30 minutes u yaraan 3 jeer suuqi soo galo bulshada u sameeyno waxyaalo cusub la qaybtami doono saa sheegaysa blue ocean ka iyo red ocean ka aanu sharaxi karayna meelahay hadda fursad ka banaan tahay sidii ganacsi u isticmaali karaysa sanqo maxay ahayd hadda rabaan sheegayna inay Soomaalidu tahay dad DNA-geena ku jirto inaan noqono ganacsado dad inaan nahay entrepreneurs-kaagna waxaan ay dhiigina ku jirta sida wax loo iibiyo sababtoo waxaad u baahan tahay inaad ganacsado weyn noqoto waa information iyo waxa weeyaan iyo inaad riskada gali karayso Soomaalidu labada ku fiican tahay waa labada weyn waa dadka riskada gali kara waad garan karaysaa de macna ni sharaxno ma haysan Soomaalidu waxay risk gasho dhan waxaan nahay dad u jajaban oo gali kara go'aan qaadan kara cabsidu ay ku yar tahay oo gali kara dadkan oo dadka business camera dhalin karaya waana taan aaminsanayna Soomaalidu haday halka focus ka saarto xirfad yar lagu daro oo mindset-ka ah xirfad yar oo mindset lagu daro inaan adduunyada noqon doono dadka hogaaminaya aan aaminsanahay mustaqbalka inaan noqon doono dad lagu xisaabtamo waana ka garan karaysaa taariikhiin dad bilicsato say Soomaalidu adduunka ganacsiga uga soo hogaamin jirtay oo inta Europe to African-ku bay Africa iman inaan nako Africa hogaamin jirno taariikhiin dad akhrisato waad ogaan doontaa inaan nahay dad waxaan u jajaban oo waxaan garanaya kuna mara dhalin karaya ونوصل نلقى في دونا إن شاء الله بلو أوشن كمالها فرصة كبنايين سيدا ميتا فاسيا ميشيجي ويب سري وكلا مالها كلا إي كوميرس وكلا أما تريد أم NFT جا أما كريبتها أما فوركس جا أما حالين كين لجوه هي مالها بدنا جراسيو اسكو حري كريسان أما تطي ودن كتشوجا ما ودن كنتشوجا أي كيف عيدي سن كريان ونلقى في دونا إن شاء الله دلنا هذا وتكون ما سنتين بقول دوري تنقف وكسقيب كلاي تكون ما سنتين شرف بيناتها إن شاء الله إن اللي وداقو وحقا رأي جيجا habay wanaagsan baan rajeynaa adina sidoo kale aad u mahadsan tahay walaal Amar dhammaan walaalaha barnaamijka soo xaadir waa mahadsantihiin kulanka waqtiga ugu talagalna waa la gaaray oo ku faraxsanahay inaan idin la wadaagno wax maskaxdiina in uuna wax ku biireen oo dareemaysaan inuu barnaamij xiiso badan oo waxaysan dhegin hore u maqli jirin uu yahay
barnaamijyo aad u badan oo noocyadan oo kale baan ka hadli doonaa oo dhinacyo kala duwana taxan u noqon doonaa waxaan ka hadli doonaa dhinac walba iyo maanta qofku waxa weeye fursadaha kala duwan hadday noqoto waxa weeye forex hadday noqoto crypto hadday noqoto futures hadday noqoto waxa weeye NFT hadday noqoto web3 waxaasoo dhan barnaamijyahaasoo dhan oo taxanaa buu noqon doonaa marka waxaan u bixinay barnaamijkan sida aragtay qaybta fikradaha muhiimka buu noqon doonaa laakiin waa red ocean blue ocean strategy baan insha allah qodqodi doonaa oo ilaa aad xog badan ka heli doontaan waan hubaa habeen walbo aan soo geli doono inaan barnaamij dhisan oo xog iyo dunidan casrigaa sida u socoto ku salaysan aad ka heli doontaan waa mahadsantihiin waan idin kaydinayaa livekan waa daawan doontaan intiina aan waxa weeye ka faa'iidaysan intiina kalena waa heli doontaan win-win situation inaad guulaystaan anaguna guulaysana way hadafkeeyu walaalayaal waa mahadsantihiin guulaysta kelmadda u dambaysa amaar dhihi doonto waa maxaa walaalayaal insha allah soo laabad wanaagsan aad bay ugu mahadsan yihiin caawis wanaagsan dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsantihiin barnaamijka sidaa uga hesheen su-aal koraan idin soo weydiin doonaa kasoo jawaabi doontaan guulaysta walaalayaal allah idin sharfo waa idiin seef karinayaa la wadaago walaalaha kale oo aad la jeclaan lahayd inuu barnaamijkan habfikirkiisa iyo maysadkiisa ay wax badan ka bedelo waa mahadsantihiin guulaysta